waxaa tahay heegada indhaha lagu wada hayee dhibicda lagu hoortayo hilaa cariftiinka dheer oo ka tan hiigaabaya waxay u horseed yihiin guushaan wada hibarayniyo kulmiyo xukunkii hantay muuse xukunkii hantay kulmiyo xukunkii xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn u qabtay boqolaal iyo boqolaal taageerayaal oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo hogaaminayo xogayihii gobolka Togdheer ee xisbiga wadani oo ku soo digarogtay xisbiga kulmiye munaasabadani oo ka qabsoontay bogcad ballaaran oo ku taala hotelka City Palace ee magaalada Burco ayay soo buuxdhaafiyeen taageerayaal jibaysan oo ay ka muuqato qiiro kulmiyeysan isla markaana ku soo jeeni qaartay astaanta xisbiga kulmiye calanka labada midab ka kooban gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan gudoomiyaha garabka haweenka Nasra Qaliya Jaamac Xaaji Axmed iyo Khaliif Xiinwal ayaa si weyn u soo dhaweeyay taageerayaashani iyagoo farta ku fiiqay inay yimaadeen xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiye tirada badan leh ee uu hogaaminayo xogayaha iyo xubnaha guddiga fulinta ee gobolka baanu ku soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye waxaanu leenahay soo dhawaadaanu leenahay xisbigan kulmiye waa xisbi la wada leeyahay oo u soo diga rogtay xisbiga kulmiye taasoo maskaxdiisii markii ay tuujiyeen ee ay eegeen ay la noqotay xisbiga quraha la isku aamini karaa inuu yahay kulmiye aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye ku soo dhawaada qalbi furan iyo niyadsan soo dhawaada baanu leenahay waad asiibteen halkii aad ku socoteen ee munaasibka ahayd baad degteen waan idin soo dhaweynaynaa soo dhawaada gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Now ee heer qaran dalay Sira Farax iyo Deeqa Weydaar oo ku hadlaysay ururka Now ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna hambalyeeyay taageerayaashani cusub ee xisbiga kulmiye yahay xisbi la wada leeyahay wax qabadkiisuna dalka ka ifayo mar labaad waxaan ku soo dhaweynayaa xisbiga kulmiye waxaan leeyahay soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada anagoo xisbiga kulmiye heer gobol iyo heer qaranba aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay soo dhawaada waa xisbigiinii waxaan aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaa soo dhawaadaan idin leenahay waanu idinla shaqaynaa si hagar la'aana xogayihii hore ee xisbiga wadani haddana sida rasmiga ah ugu soo biiray xisbiga kulmiye Cabdisalaan Maxamed Aadan iyo xubnaha la socday ayaa ka waramay ujeedada ay salka ku soo dhigeen xisbiga kulmiye oo ah bay dhaheen mid la isku haleyn karo hogaamintiisa marka hore xisbiga wadani waa xisbi dhalin yar oo da'yar wuxuuna hadduu yar yahay kacakufkiisu wuu badan yahay siyaasaddii xisbiga wadani waxaanu aragnay inaanay bidul tijaah tahay oo ay leexleexanayso sidaa daraaddeed waa xisbi qaran waxay ila tahay muddaa u hadhay wakhti dheer baa u hadhay haddaba xisbiga wadani ha soo barbaaro laakiin maanta maalintiisii maaha barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo ku-xigeenkiisa Maxamed Diiriye Xayd iyo duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraade ayaa ku dheeraaday waxqabadka xukuumadda ka dhalatay xisbiga kulmiye iyo sida ay dadku ugu hanweyn yihiin in mar kale gacanta dalka ay ku aaminaan xisbiga kulmiye iyo mujaahidiinta kulmiye muddadii 6 sanadeed u hayay muxuu ku soo biiriyay qarankan muxuu keenay tallaabadii ugu horeysay ballanqaadkoodii waxaa ka mid ahaa inuu mushaharka shaqaalaha Soomaaliland laabo way dhacday wuxuu ku ballanqaaday in uu ciidamada qaranka darajada garbaha ka saaran maanta quruxda badan leh inuu ku ballanqaado 3 madaxweyne oo ka horeeya ka baqday waxaad looyeysaa wallaahi waxaan ka weeyaa buul tii madhnayd baan qaadi gaadhay buul waxaan ku faraxsannahay maadaama Cabdisalaam iyo ciidankiisu tii madhnayd aanay qaadine tii goolku ku qallaha ay qaadeen tana waxaanu leenahay markaa walaalayaal dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa waxa weeyaan waxaynu maanta gaadhsiinaynaa ciddii u soo halgatay dalkan ciddii meel weyn ka gaadhsiisay ciddii maanta xoraysay abaalkaynagu leeyihiin ma gudnaa
salaadiin waxgarad cuqaal iyo dadweyne tiro badan oo ka hadlay munaasabadani ayaa iyaguna si isku mid ah u soo dhaweeyay taageerayaashani ku soo biiray xisbiga kulmiye ee ka soo baxay xisbiga wadani. Cabsa Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland, Burco.